qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa si weyn u bogaadiyay socdaalka madaxweyne Siilaanyo oo ku marayo xeebaha Soomaaliland iyagoo ugu hambaliyay doorka uu madaxweynuhu bulshada ku dhaqan goboladaasi ugu kuurgalayo xaaladooda nololeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga ballaaran uu hogaaminaya ay ku marayaan dalka gaar ahaan xeebaha dalka runtii safarkanu haddii la soo ururiyo gebigiisuba waa wada taariikhi xeebta dalkeenu waa xeeb aad u dheer ilaa 1,000 kilomitir bay ku dhowdahay 1,000 kilomitir bay xeebaha dalkeenu ku dhow yihiin waana xeeb aad u dheer waana xeeb runtii qanina ah wadooyinkeeda iyo xaaladeeduna ay runtii dee adag tahay oo loo yahay sida lagu marayo sida lagu gaadhaa inay adag tahay isagoo madaxweynuhu maskaxda ku haya muhiimadda xeebaha iyo khayraadka ku duugan iyo muwaadiniinta degan iyo sida ay ugu baahan tahay in wax loo qabto ayuu go'aansaday intuu kaga soo qabto galbeed inuu Lawicado ilaa Laasqoray isu maro halkan waxaan hambalyo iyo bogaadin aan uga direynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Siilaanyo iyo wafdiga uu hogaaminayo oo gobollo badan oo Jamhuuriyadda Soomaaliland socdaal dheer ku soo maray aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay runtii maanta ma aha hambalyada hore ayaad u mutaysatay sababtoo ah dee wax qabadkii dalka aad iyo aad ayuu u muuqdaa waanu kugu hambalyeynaa hay'adahan wax qabadka inta badan halka ka shaqeeya marmar waxa ku dacwoodaan ammaan ma aha bariga Sanaag iyo barigu wax ammaan ma jiraan waxa la madaxweynuhu waa ka Laasqoray tagay waa ka dhagax dhigay meel walba wax weeye shacabkii baa doonaya wixii wax qabad loo sameeyo dalkeena inuu transparency yeesho meel kaliya inay saa u joogaan waa laga fiican yahay inay ku dhiiradaan oo ay tagaan shacabkuna way u dadaalayaan wayna la shaqeynayaan heer cirgaabana waxaan leeyahay waa taas wadadiina madaxweynaha yimid gurigeenidii ku yimid dhagax dhigay insha Allah idinkana dadaalkeena muujiyo anigu waxaan oran lahaa qof badee waxba maskaxdiisa taabta socodkiisa anigu saddex wax baan muuqaal wanaagsan oo ka duwan muuqaaladii hore baa iga soo dhex baxay saddexdaa waxay kala yihiin midi waxa weeye ta ku saabsan socodka yani socodka dheer ee intuu halka ka baxay gobolladii dalka oo dhan uu mid walba sii maray oo aan rajaynayna jeclaan lahaana gobolka kaliya hadhay hadda in la yiraahdo gobolka Sool oo ah gobolka aan anigu wakiilka ka ahay iyadana inuu ku soo khatimo dhanka kale waxa isna ka hadlay la taliyaha arrimaha bariga ee madaxweynaha Fuad Aadan Cadde waxaan ugu baaqay madaxweyne Siilaanyo inuu kormeerkiisa uu sii maro deegaanada xuduun ilaa gobolka Sool waxaanu nahay maxaafad waxoogaa baanu tuurtuuri jirnay saasaanu ku dambaynayna madaxweynuhu Laasqoray ilaa iyo Lawicado isu maray waryaar Soomaaliland ay waxbu ina baraya berberada baashi waad arkaysay war wixii la sheegay inay been tahay mar haddii xoogiisu nin wasiiro la socdaan saaka weydiiyo yiri ka waran safarkan dheer iyo madaxweynaha wuxuu yiri wallaahi annaka wuu naga muuqdaa Hargeysa inuu aqalkiisa ka soo toosay baad moodaa waxba inoo sheegay madaxweynuhu waxa uu inoo sheegay sida Siciid xildhibaan Siciid yiri waajibkeeni inana aan ka soo baxno waxaan intaa ku darayaa intaanu Ceerigaabo soo dhaafin gobolka Sool maaha Laascaanood qura waxaan rajaynayaa halka dhexe fiqfuliye Orbogays xudun ilaa Laascaanood intaas oo hadhay intaana inuu soo maro aad iyo aad uu mahadsanyahay waan hambalyeynaa haddaba hadalkan bogaadinta ah ee ka soo yeedhay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka dambeysay socdaalkii madaxweyne Siilaanyo gaar ahaan uu ku tagay magaalada Laasqoray Cabdishakuur Haybe Somsa TV magaalada Hargeysa